adigu ciisa wali ma sanadkiisa shaqo soo doonatay runtii aad baan u naxay oo interviewgii waxaan ka jawaabi lahaa waxaan ka naxay qabiilka ugu horeysiyay wasiirku aad baan naxay runtii aad baan uga murugooday aad baan uga damqaday marka wasiirka hadalka yidhi waa kuma Dr. Cabdiwali oo wasaaradda jooga wasiirka wasaaradda runtii markaan ku iri wasiir anigu aftibaadii Taiwan ku iri oo Jibril Korbay dhalay Hargeysa intaasan ku soo leekaaday de Djibouti iyo meesha ka sheekeynaysan ma garanay waa taariikhdeeda uga sheekay daawadayaal hadda barbarkayga waxa taagan Xamda Xuseen Cabdilaahi madaxa xiriirka dadweynaha ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland oo maanta sheegtay inay ka tagtay shaqadii ay ka haysay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland kadib sida ay muuqaal iyo qoraal ay soo dhigtay barteeda Facebook ay ku sheegtay tacaddi iyo dhibaatooyin ay kala kulantay wasaaraddaasi gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi Dr. Cabdiwali Sheekh Cali Suufi Jibriil Xamda